qabsashada channelka Faisal Cabdi Bootaan qabsashada u badan oo Soomaaliland leedahay iyo ciidamada Soomaaliland qaar badan oo kamid ah maxaabiis loo qabsaday iyo qaar badan oo kamid ah dadka deegaanka oo dhintay oo dhaawacmay oo dagaal sideed bilood in ka badan soconayay inaguna halka ku baahanayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu arsadaa markii uu diray afidka joogtaan markaan maqal soo dhawaad saaxiibayaal markii ku horeysan soo martaan dadka ka caasan taawada maqalkan aad gelisid boggan YouTube Cabdirasaaq Maxamed ama Cawl official had baad taqaan aad soo beertid bartayna Facebook-geedana Cabdirasaaq Maxamed inaad follow like soo saartaan aad baad mahadsan saaxiibayaal ku mahadsan joogitaankeena ka midaanshiina muddo badan oo bil iyo in ka badan ismaana arag waxaan aad uga xumahay inaan dad inta leeg soo fariisanay saaxiibayaal laakiin ilaahay idinkii wixii imka ka dambeeya waxaan aragjeynaya inuu updates ku noqon doono halkan soo wada fadhiisan doono oo saaxiibayaal ay magaraan saay soo hor fadhiisan doono ilaahay idinkii idinka xalay ka baahiyay idinka maqaalkan aad reegaysaan YouTube-kana ku soo biirtaan boggan Facebook aad soo follow garaysaan wayahay muddada bisha ah ee aanu kala maqnayn maxaanu ku maqnayn maxaa sayni ka dambeeyay mawduucyo badan oo naga dambeeyay intii oo dhan ayaan ka hadlo magaraan ka maqnayn ayaan saaxiibayaal diray bal maanta inaan dul istaago kow waxaan dagaalka la xasano laba waxyaabo social media aad ku qabsaday saddex arrimo saaxiibayaal doona ka hadla laakiin ugu horeynta waan kula arrinta la xasano hay'adna Cabdirasaaq Maxamed ma siyaasad ayaa ka hadlaya oo arrimaha siyaasadda ayaa dib ugu soo noqday hore waxaan u sheegay arrimaha siyaasadda ee Soomaalida in afaarahooda la gelin waad fahanteen Soomaaliya anigu bulshada Soomaaliyeed bay daawataa inta Soomaaliya ku hadashay daawataa reer Somaliland bay daawataa reer Soomaaliya daawataa reer Puntland bay daawataa reer cidkaas reer Jigjiga ay daawataa reer Hargeysa ay daawataa marka Soomaaliya anu ma doonayeen waxyaabo caadifadaysan oo magaranaysa caadifad iyo magaranaysa xumaan ku jirto in halkeed ku baahiyo balse laakiin waxaan doonayaa waxyaabo dareenkayga aragtayda ku saabsan anigu aan arko wax laga hadlay karo fiican oo muddo fiican inaan idin soo gudbiyo waad fahanteen Soomaaliya idinka laakiin waxyaabo caadifada ay magaranaysa xumaanta iska reeb xilliga salaada ayaa taagan yahay wax rajinay xilliga salaada hadda joogto meesha doonto adiga daawanaysa maqaalka doos garisid oo salaada Ilaahay soo tukato wayahay andulus taago dagaal baa ka dhacay shan laatan bisha magaalada Laascaanood dagaalkaas dhibaatooyin badan iyo qasaaro badan sababay dagaalkaas oo dhibaato badan oo reer Somaliland iyo reer Laascaanood iyo magaalada dadka Soomaalida ee walaalaha ay dhibaato badan dhaxdhigay jararaal ama jarano ayaa lagu kala qabsaday dagaalkaas dagaal saameyn badan yeeshay ma doonay dagaalkan ka hadlo oo anigu arrimaha dagaalka iyo arrimaha siyaasadda waxyaabo social media ka hadla way ka duwan waxyaabo entertainment-ga madadaalada ayaan jecelahay inaan soo gudbiyo waad fahanteen Soomaaliya qabsashada channelka Faisal Cabdi Bootaan qabsashada u badan oo Soomaaliland leedahay iyo ciidamada Soomaaliland qaar badan oo kamid ah maxaabiis loo qabsaday iyo qaar badan oo kamid ah dadka deegaanka oo dhintay oo dhaawacmay oo dagaal sideed bilood in ka badan soconayay inaguna halka ku baahanayeen maanta waxay ka dambeeyay horta bari iyo banaan ayaan ka taaganahay oo waxaan idin simantiin maadaama dadka wadatiin oo dadku wada deegaanay isku dhaqanahay waxaan idin balan qaadaya inuu ismanahay Soomaalinimada waad fahanteen Soomaaliya haddaba dagaalka hal maadaama doonayaan dul istaago halka maadaama dagaalka doonayaan dul istaago waxa weeye maxaabiista halka kala qabsaday iyo aragtidii dareenkayga soo loo dhaqmay iyo dad badan oo la gowracayo iyo dad badan oo dhibaataynayo hal maadaama horta reer Laascaanood ama dadka degaa say sheegan sool sanad yacayn aanu soo jeedinaya oo arrinkooda iyaga ku hormarayo halka arrin soo jeedinaya waxa weeye horta aniga waa idinka raali halaysan ka Cabdirasaaq intii aan idinka soo horjeeday waa kow maadaama dadkayga tiin reer Somaliland iyo dadkayga Somaliland dawaan waxa leeyahay waan idin taageersan oo idin garab istaagaysanahay inka cid kasta oo Soomaali ku hadasha ma fahanteen laakiin dad Soomaali maadaama nahay dad meel kala tegina maadaama ayna ahayn dad wada dhashay maadaama nahay dad isku deegaan maadaama nahay dad isku dhaqan maadaama nahay dad walaalo maadaama nahay waxa qurux badan oo wanaagsan in waxyaabaha caadifada xumaanta ah magaranaysa dhibaatada iyo raqadka dambe Kenya inay ka fogaan warta arrinka kula tan relax anu halkaan leeyahay waxa weeyaan Somaliland gulbad ka gaadhay dadku wada arkeen ummadda Soomaaliyeed wada arkaysay tumaraaga ilaa iyo inta u dhaxaysa ay qabsateen horta deegaan awalka hore waad lahaydeen oo deegaankiini oo magaranaysa markii dawanaad si kala wax aragteen ayaa waxa laakiin hal maado idinka digaya walaalayaal hal maado ay idinka digaya dadku waa Soomaali oo meel ma kala tagayaan dadku waa iska deegaan oo meel ma kala tagayaan dadku waa walaalo oo meel ma kala tagayaan anigana idin hadlaya idin hor taagan idin hor jooga dadkayga waati halka maadada ku codsan waxa weeye in maxaabiista iyo dadka aad qabateen si wanaagsan in loo dhaqmo dadka la gurgurayo ama la biniyo dadka isku soo sawareen waxaan leeyahay social media waxa kala ma baxo waxa social media waxa kala ma baxo barnaamijkan ka baxo
haddaba halka idin yaalla ama halka idinla gudban waxa weeyaan inaydan arrin saameyn ama xumaan leh aydan iska reebin. sida kale waxyaaba kale iyaguna sida aadka u sahlan inta badnaa waxa weeyaan shalay General Faisal Cabdi Bootaan ayaa lasoo fadhiisiyey oo magaranayay isagoo hadlayo labisan kadibna hadal hayn badan buu ayuu dhalay. kadibna waxaa ka hadlay maarkii Laascaanood iyo taliyihii ciidanka booliska ee Laascaanood si magaranaysa dadka deegaanka ay sheegeen ama inuu baahiyeen. haddaba Faisal Cabdi Bootaan horta maxaabiistan badan ee xiran buu la mid yahay oo waxa la xuquuq uu Faisal Cabdi Bootaan gooni u leeyahay ma jirin wax xuquuqda de wuxuu la mid yahay dadkan shacabka dadkan askarta kala xiran dad qabateen. haddaba isagana iyagaba waxa la idinka codsanaya inay soo nasan kala dhaqantaan oo Soomaalnimo ku jirto oo walaaltinimo ku jirto dadkuna ma kala tegin oo isku deegaan waa isku dad hal maado kala duwan oo istaago oo si toos u istaago. waxna yahay dadkan Afrika joogna gaar ahaan dhulka Soomaalida joogna gaar ahaan Soomaaliya halkan doonaan joogna ama aan Djibouti joogna ama aan dowlad deegaanka joogna ama NFD joogna hal maadan soo ogaad saaxiib bishaada ka maqan daraasado soo sameeyay halka maadan soo sameeyay waxa weeye inaan caadifad qabiil iyo caadifad reer waxba laga faa'iidin inaad qabiil reerkiina xitaa inaad raacdo inaad waxba ka faa'iidin. haddaba dadka social media isticmaala ee dadka Soomaalida kala geenayo waxaan leeyahay inaad reer waxba ka faa'iidin miisaan inaad reer ka daayay warna reer ka daayay waxba laga faa'iidin maayo ayaan leeyahay. waad fahanteen Soomaa mawduuca siyaasadda halkaas kaga imanaya waxa aad iyo aad hadalay badan oo dhalay ama waxa aad iyo aad loo hadlayay maalmihii ugu dambeysay waxa ahaa magaras arka boqorada isteelka iyo xajiga idan mawduuc baan idin wada mawduucan mawduuciga ayaan doonaysaa xabban ka hadlo aad baad u mahadsan.